Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa sheeko yar oo aad u murugo badan, waxayna ku bilaabatay sida tan. Waxaa jiray cunug yar oo lagu magacaabo David oo ka dhashay qoys sabool ah. Curadka hooyadiis ayuu ahaa, aadna way u jeclayd isaga. Maalin maalmaha ka mid ah ayay asagoo hurdo ka tagtay, waxayna aaday bannaanka si ay u soo waraabiso beerteeda. Intii ay halkaas ku maqnayd, gurigii ayaa dab isqabsaday, waxayna u soo orday dhanka guriga si ay u badbaadiso wiilkeeda. Dadka waxay isku dayeen in ay celiyaan iyada, balse waa ay celin waayeen. Gudaha ayay gashay, waxayna aragtay wiilkeeda oo dhulka yaala oo oynaya. Nasiib darro, timaheeda ayaa dab qabsaday iyo qaar ka mid ah wejigeeda intii ay wiilkeeda ka soo bixinaysay dabka. Aad ayay uga xumayd inta nolosheeda ka harsan, sababtoo ah waxaa mar walba wejigeeda ka muuqday dabkii ay ku gubanaysay. Wiilkii waa uu weynaaday, maalqabeen ayuu noqday, tuuladiina waa uu ka guuray. Laakiin dareen ahaan hooyadiis aad ayuu uga labalaboon jiray wejigeeda oo aad u foolxumaa awgeed. Markay dadka weydiiyaan sababta uu u necab yahay hooyadiis, wuxuu dhihi jiray, aad ayay u foolxun tahay, qoyskeennana ayada ayaa ugu xun. Waxay rabtay in ay u safarto magaalada si ay ugu sheegto wiilkeeda sababta ka dambaysa foolxumadeeda. Laakiin nasiib darro, baskii hooyada saarneyd ayaa shil galay, isla markiina wiilkii hooyadiis ayay meesha nafta uga baxday. Wiilkii ayaa maqlay in ay hooyadiis dhimatay, waxa uuna dareemay farxad. Tuuladii ayuu ku soo laabtay, wuxuuna arkay dadkii tuulada ku noolaa oo wada murugaysan. Waa uu soo dhaafay, gudaha ayuu soo galay, wuxuuna toos u galay qolka hooyadiis, asagoo raadinaya waxyaabo muhiim ah oo ay hooyadiis ka tagtay. Runtii waa uu la yaabay markii uu arkay buuggii xasuus qorka hooyadiis, waxaana ku qornaa sida tan. Taariikhda markii ay ahayd 5 Sebteembar 1980, waxaan ku guulaystay quruxda magaalada Toronto. Taariikhda markii ay ahayd 14 January 1982, waxaa shil baabuur ku geeriyooday aabbahaaga anigoo 6 bilood caloosha kugu sida. Taariikhda markii ay ahayd 2 Juulaay 1983, waxaan dab ka badbaadiyay wiilkayga aan jeclahay, laakiin waxaan ku waayay timahayga iyo quruxdayda. Wiilkii David ahaa arrintii aad ayuu uga xumaaday, waana uu ooyay, laakiin waa uu ka soo daahay. Fadlan ha caayin waalidka, ma ogid waxay ku hayaan, laakiin waxaad dareemi doontaa markii ay ka tagaan.